ka tirsan xukuumadda ra'iisul wasaare Kheyre ayaa loo ganaaxay qashin lagu arkay afaafka hore ee gurigiisa. warar ay heshay idaacadda dalsan ee magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegayaa in dowladda hoose ee xamar ay ganaax lacageed ay ku ganaxday wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya Xaaji Cali Sheekh Maxamed Nuur. wasiir ku-xigeenka ayaa waxaa lagu ganaaxay lacag dhan 1 milyan oo shilinka Soomaaliga kadib markii sida la sheegay gurigiisa hortiisa lagu arkay qashin, sidaasna uu ku bixiyay lacagtii lagu ganaaxay. waa markii ugu horeysay oo wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ee ra'iisul wasaare Kheyre lacag lagu ganaaxo isla markaana uu bixiyo waxaana tani ay ku soo aadaysaa xilli ay weli jiraan wasiiro kale oo ka tirsan xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo u baahan in markaasi la dabagalo.